السلام عليكم asxaabta kusoo dhawaada youtube channelkii walaalkiin Kaari Official sida xagga kusoo arkaysiin maanta waxaan halkan soo fadhiistay in aan wax ka tuso barnaamijkan ku cusub TikTok-ta gaar ahaan in lacag laga sameeyo TikTok-ta maxaa ka jira lacag laga sameeyo TikTok-ta haddii ay jirto si yaa laga sameeyo yaa si loo geli wadamadii ka shaqeynaysa lacagta si looga baxaa dhammaan waxaas oo dhan maanta rabaa in video kala helo haddana hore channelka uga mid ah soo dhawo subscribe tirka wac kaga sii haddii kan la farta saar labada jeer bal lagu ku banaantahay soo dhawaada meeting marka hore barnaamijkaas guud gali doona insha Allah waxaan isku dayaynaa step ayr oo dhinacna xaggan shaashadayda ka tusaysa wax la oranayo waxaan bariyahan soo kordhay in TikTok laga sameeyo lacag gaar ahaan bishan September laga bilaabo imika waa week ka hor meelaha ku dhawaad ayaa wax bilaamatay in lacag laga sameyn karo TikTok barnaamijkaas ayaa soo baxday oo Soomaali badan ay soo xitaa sheegtay TikTok taqaariyan lacag jira inkastoo ay wax cid sharaxday jirin markaana saas oo jirta baan sir maanta aan jeclaysan si fiican u sharaxo qofkan hore aragu maanta aan ka arko oo sida uu moolkiisa ugu apply gareynaya ama uu u dalbanay xataa oo aan aran ka tusno insha Allah markaan wada socod wanaagsan like to know muhiim comment ka diya su'aal baahan tahay ku saabsan ama TikTok ama waxyaabo noocaas ah xataa si direct ah soo jawaab si toos ah ayaan u soo jawaabi doonaa marka iyadana wax sameyn doontaa حاجة بad maragtaan ma garatay horta marka hore hadii su'aalaha si kala horeeyaan in soo gallo intaayna sharaxaad iyo waxa bilaabin waa sax TikTok tabta YouTube ta select adina ka wanaagsan ayaa lacag loo sameeyaa YouTube ka soo shaqeyn jiray uma shaqeeyo YouTube shuruudihiisa mid ah shuruudo ka duwan bilaad isa socod wanaagsan insha Allah xarjinay in si fiican loo socno asxaabta wixii TikTok karay waxaas aad isticmaal TikTok tadiisii dhex jireen luuqa u raacay kan marka hore gudaha galo TikTok waxay ogolaatay inay video kastaba lacag ku sameeyo halkii video balacag baa laga helayaa intii doonto ha leekato laakiin video ahaan baa lacag looga helayaa marka koowaad TikTok hadda waxaad ka dhigan kartaa sida shaqadaada caadiga aad guriga joogo ama meelaha dadkii iska soo dhexgeli jiray maanta shaqay u tahay update kan cusub ee TikTok la timaaday waxa uu la mid noqonayaa sida YouTube-ka markastoo hesho views badan waa markastoo lacag badan samaysa barnaamijkan TikTok lacagta ku bixinaysa horta waxa la dhahaa TikTok Creator Fund waxayna bilaabatay bilowgii September lacagaha ay ugu tala gashay TikTok inay ku qarash gareyso oo dadkaas lacag ku helaan waxa weeyaan marka la eego UK iyo Europe waxa weeyaan lacag 50 milyan ku dhaw hadii la eego dadka America ku nool 1 bilyan oo lacag ayaa sanadka kooda ku qarash gareynaya marka sanad kasta lacagtu sii kordhaysa feeska dad maanta inta ku helistay in ka badan ku sii helisa mar walba kor buu kaasa ma soo darin wadama aan inuu ku shaqeeynin ma oran wadanka lacagta laga helayo ama TikTok ma shaqeey karayso taa macnaheedu waxa weeyaan dadka ama Afrika jooga ama meelaha kale waxay ka ogaan doonaan marka qaabka tusaymanka ay u ogaadaan ay ka raadiyaan hadii uu soo baxdo lacagtu helayeen laakiin hadda waxa la hubo oo la soo qoray waa Europe xataa Europe dhamaanteed ma wada aha wadamada qaar iyo America dhamaanteed step inuu socono hore ka galina mobilkiga soo qaadansan waxaad gelaysaa sanadii tilmaamaha insha Allah gelaysaa wada eegaysaa in horta barnaamijkii furay hadii aan ku furnayna hadda fursa hadii uu diiday intaana cilada kala jirta iyo followers laga baahan yahay iyo wax yar ku sheegay YouTube-ku caadiyan marka YouTube-ka weeyaan YouTube-ka caadi wuxuu baahnaa 1k subscribe kun subscribe iyo 4000 oo daawasho ah xagan way ka duwan tahay TikTok waxa weeyaan ugu yaraan waa inaad 10k haysataa 10k waa haysataa follower-kaaga waa ta koowaad talabaadna waxa weeyaan bishii u dambeysay waa in views-kaaga marka la isku dardaro 30 cishay u dambeysay waa inay gaadhaa 10000 maxaa ma 10 hal cishay ku daawata ka badankooda marka hadii xitaa aanad qofka kuna gaari macna fiiskiisa aad badnayn waa 5 video hada soo dhigto bishii xataa bisha 10 video soo dhigtay oo min kun ku daawato oo filan midda kale horteeduna ah in la ogaado qofku waxa weeyaan kunkii views ama kunkii daawasho waxa uu ka heli karaa qofku lacagtu ka heli hadan hore iska sii guda galno 2 senti ama 3 senti ama 4 senti waa inta celisaan adu 3 senti bade marka isku celiyo marka 3 senti hadii uu qofku fiiski ku helo sooran markuu wax ku soo dhacso wala xiyar laakiin maaha 3 senti balma ku dhufo hadii 100 ku daawo hal fiiyo haduu qarxo caadi TikTok waxay naqaan waxay leedahay qarxid oo marka saa dhowr fiiyo soo dhigtaan mid baa qarxa oo 100 ku daawato 100 kun halkii kun buu yahay 3 senti marka la isku dhufo lacag fiican baa ka soo baxsan hadii si kale xataa fiiska uu qarxinta bisha dhan hal fiiyo ku qarxay kule sidaas ka hal fiiyo oo qarxa bisha ma waayis xataa hadii فيس أنا سماين بعضو أنا فيديو قرح بان الرهين وهالك فيديو يكون طاوتو لابكم بتصارع كصوبان وهذا صار لي بقول فيديو بشي بقول لابكم كل فول لابكم 6 سنتي كل فول
waxaan tusayaa sida loo active gareeyo ama looga dhigo loo apply gareeyo ama loo dalbado haddii kugu jirin. marka koowaad intaan wax kalaba sameynba update garee TikTok-taada haddii doonti delete garee mar laba soo deji ama intaad application-kaaga tagtid update mar labaad. markaad update gareyso waxaad u baahan tahay pro account meel ay ku qoran tahay inaad heshid oo aan markan caadiyan aad leedahay aan kugu jirin, laakiin marka aad soo update gareysid ayaa la rabaa inaad barnaamijka hadana gashid. markaad soo galaysaa mobilkaaga soo qabso TikTok-taada ku dhufo. marka mobilkaaga markaad soo qabsatid TikTok-taada furaysaa waxaad gelaysaa halkii TikTok-taada furaysaa waxaad gelaysaa qaybta yare u shishaysa oo nidicana mid halkaa yar bad gelaysaa waad ku dhufanaysaa waxa weeye halka yare username-kaaga iyo views-kaaga la ka heshid. marka saad tagtid waxaad tegaysaa saddexda calaamadood ee u sareeya. saddexda calaamadood markii ku dhufatid waxa ku soo baxaysa ta koowaad ee manage account ayaad ku dhufanaysaa haddii English ku qoran tahay inaad manage account meesha la macnaha tahay ee macna kale ku yaalo baad ku dhufanaysaa. waxaad tegaysaa halkii u hooseysa ee cas ee ah halka cas ee u hooseysa ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay switch pro account qoran tahay baad ku dhufanaysaa. waxa soo baxaysaa laba waxbaad kala waxa soo baxaysaa labada bahal baad kala dooranaysaa waa creator iyo haddii aad tahay business. marka saynu u badan hay business ma jirto creator ku dhufanaysaa. waxaad kala sii dooranaysaa nooca tahay ma dhakhtar baad tahay ma wax kala tahay maxaa tahay oo sideed u joogtaa meesha. marka aad already waxaan u badanahay markan ee majority-gina entertainment bas kana dadka iska faniga waxaad ku dhufanaysaa kala soo hadhay email waa mail iyo female ka tahay baadana soo hadhay female baad tahay sooma female ku dhuf ama nin baad tahay ku dhuf mail kabacdi ku sii dhuf kabacdi ku sii dhufanaysaa saasad soo cancel iris ka dhe way dhamaatay. mar haddii halka soo gaadho dhamaatay kadib dib u galaad kadib waxaad sameynaysaa halkii yare saddex dhibcood baad ku dhufanaysaa waxaad tegaysaa manage account hadda kuma dhufanaysid waxay hoos soo dhaadhacaysaa halkan pro account ama haddii business kugu qoranta kolba wixii ku qoran baad ku sii dhufanaysaa. saa ma ku dhufatay maxaa ku soo baxay tan hoose creative fund ee u hooseysa saddexaad ayaad ku dhufanaysaa. already wata halkaas lacagta ka helaysaa wataa barnaamijka halkii lacagta ku qornayd zero ba hadda halkaa ku qoran haddii ay sentiyada halkaas kolba kaga kordhintaa kolba video haddaba mid kale jirta oo ah inaad iyadan la ogaado wax la xisaabiyo. haddii marka maanta aad video badan soo dhigtid ood arki weydi lacag ku kordhaysa haska suug waxa weeyaan waxay xisaabinayaan 3 cisho videoga marka maanta aad soo dhigtid 3 cisho ka bacdi lacagtiisa la soo qoraya waa ta koowaad. talaabada haddaad tahay lacagta markaad rabtid inaad la baxdid oo kale iyadana waa tabta YouTube-ka hal bil ka bacdi baa lacagta lagu siinaya. markaad bishan shaqaysa 9aad oo kale 10aad baa lacagta helaysaa saas oo kale noqonaysa. dadka loo ogoliyo sharci ahaan loo ogolyahay inay lacagta ka sameeyaan TikTok wadamada joogaan halka joogaan shuruudaha yare ku xidhan waa kuwan waa inaad joogtaa UK America Spain France iyo Italy adigu Europe macnaha inteeda badan mararka qaar wax laga helo wadamada qaar may soo qorin laakiin wadamo badan oo aan halkan ku jirno Europe oo dhan baa laga helay. waxa kale oo laga baahan yahay horta waxyaabaha shaxmada ku jirta dadka waxyaabaha shaxmada soo dhiga iyo waxa kuma helayaan waa tabta YouTube oo kale akhlaaqada meesha yeelatay waa ta koowaad. marka wax laga baahan yahay inaanad xitaa qofka dadka soo qaatay fiidiyada dadka kale iyaguna lacag kuma helayaan waxay ku barnaamij bi ka galaysa. waxaa loo baahan yahay fiidiyo original oo samaysatay sida imaka Soomaalida badankeedu ay soo sameeyeen channel channel marka soo sameeyso fiidiyo way own fiidiyo bi samaystaan taas kale loo baahan yahay. ama fiidiyo aad kaliya iska hadlayso soo fadhiisatay shardi kale ku sii xidhan waxa weeyaan inaad 18 jir gaadhay. Soomaalida si caadi ah yareysa adoo 30 sano jir hadda sireed bal 17 iskaga qoray oo diloosinayd hadda gal halkii bedel edit leh dada weynee waxa shuruuda ka sameeyay 10,000 ugu yaraan waa inaad haysataa followers-kaaga bishina ugu yaraan waa inaad 10,000 oo views heshaa. taasi dhima lahayo waa ugu fudud filaya noqon qof uu fiidiyooga uu isaga leeyahay fiidiyoguna waa original noqdo horna uu soo sheegay taasi waa mar walba ta horeysa ta u dambaysa iska ilaaliya. marka dhamaantii asxaabtooda salaamay waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga wada hesheen oo step by step ay la socoteen. qofkii su'aal u baahan ama wax yar faham way ay soo qorxa hoose commentiga ana dad badan ba iska fadhiyi jireen maanta dadka TikTok iska fadhiya iska shaqaysta lacagta iska urursada account sameeya xisaabsada waydi ka ilaaliya baasha wixii damaartaan dhaqan xumo waydi ka ku baashala lacagta TikTok dadkii YouTuberada hara maanta TikTok dib ugu sayaan YouTube kana subscribe shalay wax rajinaya subscribe saartaan idinku waan idin salaamay dhamaantiin.